sheekhi darsiga bixinaya buu iska ag fadhiistay isagoo aanan awoodin inuu maqlo waxa uu sheekha sheegayo gaajada haysay awgeed. Markii darsigii dhammaaday ay dadkii kala dareereen, waxaa sheekhay u timid haweeney is asturaysa. Dumarka xilligaas way asturnaayeen. Sheekhii bay la hadashay hadal uusan maqlin ardaygu. Kadib sheekhii baa dhinacii ardayga soo jalaacay. Keligii buu ka arkay ardaydii inuu ka joogo. Markaasuu u yeedhay, wuxuu ku yidhi, reer ma leedahay? Ardaygii wuxuu yidhi, maya. Sheekhii wuxuu yidhi, guur ma doonaysaa? Kadib wuu aamusay ardaygii. Sheekhii ayaa mar labaad ku celiyey, guur ma doonaysaa wiil yahow? Markaasuu yidhi, yaa sayidi, waxaan rooti siisto ma haysto, maxaan ku guursadaa? Sheekhii wuxuu yidhi, haweentaani waxay ii sheegtay in ninkeedii uu dhintay, magaaladan ay ku cusub tahay. Cidno uma joogto aanan ka ahayn adeerkeed oo weyn, wuuna la socdaa hadda. Waxayna dhaxashay gurigii ninkeeda iyo macaashkiisii. Waxayna rabtaa inay hesho nin ay ku guursato sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam, si aysan u keliyoon oo aysan u damacin dadka xunxun. Ma rabtaa inaad guursato? Ardaygii wuxuu yidhi, haa. Haweentii buu weydiiyey. Wuxuu ku yidhi, ninkan adigu ma rabtaa haween yahay? Waxay tidhi, haa. Adeerkeed buu u yeedhay iyo 2 markhaati ah, wuuna ku meheriyey. Meherkiina sheekhay baa ka dhiibay. Wuxuu yidhi, qabso ninkaaga. Kadibna gacantiisii bay qabsatay oo gurigeedii bay la aaday. Markii gurigii gashay ayay wejigii iska feeday, mise waaba gabar dhalinyaro ah oo aad iyo aad u qurux badan. Gurigii buu eegay, mise waaba gurigii mar dhoweed islahaa ka hadbaada jaanka. Waxay ku tiri, wax ma cunaysaa? Markaasuu yidhi, haa. Jikadii bay gashay. Waxay daboolka ka qaaday dherigii. Waxay tiri, cajiib badana, guriga ayaa soo galay maanta. Ardaygii waa uu ooyey. Qisadii buu ugu sheekeeyey gabadhii. Waxay ku tiri, waa midhaha ammaanada. Waxaad ka dhowrsatay inaad cunto baadijaan haraan ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey gurigii dhammaa iyo gabadhii lahayd, weliba si xalaal ah. Alla dartii waxaa ugu tagtid, Rabbi wuxuu kugu bedelayaa shay ka khayr badan. waman yattaqillaaha yajcal lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. qisadaani waxaan ka baran karnaa haddii aad maaragtay in yar oo shay haaraan ah adiga aad ka tagtid ama aad ka dhowrsatid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsatid, ilaahay faraj iyo meel aadan arsaag ka filaynin iyo waxyaabo badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ilaahay ka cabsada oo maaragtay awaamirtiisa qaata ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. khayr iyo caafimaad ayaan idin rajaynayaa insha allah walaalayaal. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.